hadal quus u muuqda ayaa waxa uu ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Somaliland kadib waraysi uu siiyay telefishinka ku hadla afka Carabiga ee loo yaqaan Al-Carabiya. su'aalo la weydiiyay ayaa waxa uu ku jiray goorme ayuu dhici doonaa heshiiska ama run loo bedeli doonaa kii is-afgaradka ahaa ee 1 bisha January 2024 kan la gashay dawladda Ethiopia. madaxweyne Muuse Biixi oo ka meermeeraya su'aalaha ayaa isagu waxa uu sheegay inuusan ogeyn waqtiga rasmiga ah ee heshiiskaasi is-afgaradka ah loo bedelayo mid rasmi ah. tani waxay u muuqanaysaa in Somaliland iyadu markaan ay quus ka taagan tahay inuu dhaqan galo heshiiskii ay la gashay is-afgaradka ahaa dawladda dalka Ethiopia kadib cadaadis badan oo kaga yimid dawladaha caalamka. James Iswan oo dhawaan magaalada Hargeysa kula kulmay madaxweynaha Somaliland ayaa waxa la sheegay in lagu canaantay in uu ka baxo heshiiskii is-afgaradka ahaa ee dawladda dalka Ethiopia uu la galay. balse shirkaasi xog hoose oo la helay ayaa ahayd in kastoo shirka warbaahinta laga qariyay marka la eego wararkana mar dambe ay soo baxeen. Iswan ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha Somaliland in marna aysan suulo gari karin in gobolka geeska carqalad laga abaabulo oo Somaliland iyadoo horseed ay u noqoto. waana sababta keentay in madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu isagu sheego inuusan ogeyn waqtiga rasmiga ah ee heshiiska is-afgaradka ay la gashay Somaliland dawladda dalka Ethiopia xilliga rasmiga uu dhaqan galayo. marka la eego waa run inuusan ogeyn waqtiga rasmiga ah ee heshiiskaasi uu dhaqan galayo Muuse Biixi Cabdi. sababtuna waxa ay tahay waxa uu ogaaday madaxweynaha Somaliland in heshiiskii uu la galay dawladda dalka Ethiopia uusan gabi ahaanba dhaqan gali karin. balse waraysiga marka uu bixinayay ayaa waxa uu muuqanaysay in su'aalaha qaarkood uu si dadban kaga jawaabayay. haddii heshiiskiisa afgaradka ay wada galeen Somaliland iyo sidoo kale Ethiopia uu ahaan lahaa mid sax ah, madaxweynaha Somaliland waxa uu sheegi lahaa ama uu cadeyn lahaa waqtiga rasmiga ah ee labada dhinac heshiiskiisa afgaradka ay u bedeli lahaayeen heshiis rasmi ah oo dhaqan galo. Muuse Biixi waxa uu sheegay in dawladda dalka Ethiopia ay doonayso inay hesho marin badeed. Somaliland waxa uu sheegay in iyaduna sida mid lamid ah ay doonayso inay hesho i'tiraaf. waana sababta ayuu sheegay nagu qasabtay in dawladda dalka Ethiopia aanu la galno heshiiskaasi. Muuse markaan waxa uu muuqanayaa cadaadiska isaga iyo sidoo kale saaranba dawladda dalka Ethiopia ee Abiy Ahmed uu ra'iisul wasaaraha ka yahay in caalamka oo dhan ay kala kulmayaan dhaleecayn aad u xooggan iyo xitaa inaysan isku dayi karin in heshiiskaasi ay dhaqan galiyaan. Ethiopia canaan badan ayaa waxa ay kaga timid dawlado badan oo caalamka oo Turkiga iyo Masarba ugu horeyso. haddii uu isku dayo Abiy in heshiiskaasi uu dhaqan galiyo waxa suuragal ah in dawladda dalka Ethiopia dhinac looga soo wada jeesto. Ethiopia dan weyn waxa ay ku qabtaa marka la eego dawladda dalka Turkiga iyo madaxweynaheeda Rajab Tayyip Erdogan. kamana tallaabsan karo wax walba oo ay ku amarto dawladda dalka Turkiga. balse Abiy oo darbiyada madaxyada ku garaacaya ayaa isagu waxa uu doonayaa in uu helo marin badeed uu rabo in ay dekad u noqoto. laakiin ujeedka ugu weyn ma ahan in marin badeed uu helo ee waxa ay tahay in dawladda dalka Ethiopia uu ku qanciyo oo dagaalo ahliya ay ka socdaan in bad uu soo dhiciyo. Ethiopia gudaheeda marka la eego waxa ka abaabulan oo ma ka dhacaya dagaalo kumanaan dad ay ku barakaceen kumanaan kalena ay ku dhinteen marka la eego. waxa uu rabaa Abiy in dhibaatooyinka oo idil ee ka dhacaya dalka Ethiopia in shacabkeeda uu ku maran habaabiyo in bad uu soo dhicinayo. Soomaaliya heshiiskaasi dhinac ayay ka taagan tahay oo wax gorgortana kama galayso marka la eego sida uu horeba u sheegay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. heshiiskii dhinac kale uu la galay Masar ee difaacana waxa ay sababtay in dalka markii labaad Masar ay keento hub aad u fara badan oo dawladda dalka Ethiopia iyo sidoo kale Somaliland ku noqonaysa niyad jab aad u weyn iyo sidoo kale inay ka sii fogaadaan heshiiskii beenaadka ahaa oo labada dhinac ay wada galeen.